faahfaahinno dheeraad ah ayaa soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo galabta qof waxyaabaha qarxa oo isku soo xiray uu la eegtay dadweyne aad u badan iyo saraakiil ciidan oo isku diyaarinaya soo dhaweynta wafdi ballaaran uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha Galmudug Qoorqoor ku wajahnaa garoonka kubadda cagta ee Koonfurta Gaalkacyo halkaasi oo lagu diyaariyay dadweyne badan si ra'iisul wasaaraha ugu soo dhaweeyaan maadaama galabta uu gaaray qaraxa ayaa ka dhacay dhanka koonfureed ee magaaladaas ee Galmudug ay ka arrimiso si gaar ah garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ruuxa qaraxan isku soo xiray ayaa isku qarxiyay albaabka hore ee garoonka oo ay ka socotay baaritaan waxaana qaraxan ka dhashay khasaare badan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray shacab saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin hore oo ka kala tirsanaa Galmudug iyo Puntland tirada guud ee geerida ayaa ka badan 30 halka dhaawaca uu intaasi ka badan yahay dadka la xaqiijiyay geeridooda waxaa ka mid ah taliyihii ciidanka qaybta 12aad ee xoogga dalka Generaal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje Dagaari taliyihii ciidanka danab Galmudug Muqtaar Cabdi Xasan Aadan ku-xigeenkiisa Maarsha Mire duqii hore ee Gaalkacyo dhanka Puntland Maxamed Yaasiin Tumey saraakiil ciidan iyo shacab badan oo guryahooda uga soo tagay soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha dalka halkaasi gaaray goobjoogayaal ayaa in qofka isqarxiyay uu ku labisnaa dariiska ciidanka dhexdana uu ka galay saraakiil iyo shacab xasan cabdiraxmaan fantastic oo kamid ah wariyaasha Gaalkacyo kana mid ahaa dadkii ka badbaaday qaraxan ayaa keenan u sharaxaya sida ay wax u dhaceen iyo waxa uu arkay waxaan kamid ahaa kulayada ra'iisul wasaaraha kaga hortagtay duleedka magaalada Gaalkacyo halka loo yaqaan El Aqwaan ujeedku wuxuu ahaa in ra'iisul wasaaruhu marka garoon weyn oo ku yaala magaalada Gaalkacyo oo liraa Cabdullaahi Ciise oo bulsho badan kula hadla garoonkaasi dabcan dadkii badankiisa garoonka ku sugnaayeen kulayada ugu horeysay ayaan ku jiray aniga iyo tiimka wariyaasha markaan soo galnay oo saacadu ay tahay adigu 5:40 daqiiqo meelahaas ayaa qarax u dhacay qaraxa ra'iisul wasaaraha ayaa la beegsaday kolonyadii uu la socday mise waxa uu ka dhex dhacay garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise oo soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha ay ka socotay yonis ra'iisul wasaaraha kolonyada hordhacay oo ahayn muusa soo gaarin saraakiil u badnaayeen hordhaca oo goobta amaankiisa sugaysay sida qaraxa meel u jirta halka goobta baarista ama hilibka hore laga galo meel u jirta qiyaastii 5 talaabo ayuu qaraxu ka dhacay oo halkii lagu baaray in mid ka mid ah saraakiisha geeriyoonaysa oo liraa Mashe oo ninkan dabcan yiri hal baaro oo deetan ninku oo si xooli ah ku soo jiiray dadkii ama askartii halka baaritaanka saabisnad deetana waa uu staafsidaas dabcan waxay ahayd meel aan la qiyaasi karin dareenkeeda isla markaana runtii durbadiiba ciidamadu waxay xireen aagii goobta qaraxa ka dhacay guud ahaan waa xiran indhahayaguna waxay qabanayeen qaar ka mid ah dhaawacyada saraakiisha ciidamadu waxay furayaan rasaas xoog leh guud ahaan waxaa xiran wadooyinka inta badan magaalada Gaalkacyo waxaa sidoo kale xiran goobaha ganacsiga ama meeradaha wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shariif Falegle ayaa keenan isna uga warramay sida ay wax u dhaceen maadaama goobjoog uu ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allahumma naxariisto dhammaanba dadkii halka ku geeriyooday oo saraakiisha ciidamada kala duwan u badnaa iyo dadka shacbiga ahaa iyo ciidamadiiba ruuxantii annaga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu nama soo gaarin iyo wafdiga la socday hal mar baanu waxaanu maqalay qarax xoogan ka bacdina waxa yaranay garoonka dhexdiisa dadkii iyo waxaan isku daynaa dadku isbuuran oo albaabada isku buuran abaarka bacdina oo rag badan ku dhintay baan loo sheegay Allahu naxariisto taliyii 12aad Generaal Qooje ayaa kamid ah taliyii danab ayaa kamid ah Muqtaar ku-xigeenkiisa ayaa kamid ah saraakiil kale oo qaybaha kala duwan ayaa kamid ah staafyo badan ayaa kamid ah marka dhamaantoodna Allahu naxariisto shacabka ku jira marka sida koob sugan mahayno laakiin halkaas mashaqo ka dhacay liibaan cajiib xaaji wariyaha keenan ee Gaalkacyo ayaa waxaan ka wareystay xaaladda guud ee caawa magaalada Gaalkacyo waa maantahay yooniso xaaladda guud ee magaalada Gaalkacyo iyo caawa kaasan waxaana xiran wadooyinka guud ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug mana jiraan wax dhaqdhaqaaq ah oo ka soconaya magaalada Gaalkacyo kadib qarax xoogan galabta ka dhacay afafka hore garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo halkaas oo ay ka socotay soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo galabta soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inta la xaqiijiyay 30 qof oo u badan ciidamada Israa'iil ciidan ayaa ku geeriyootay qaraxaasi nidaamyada oo galabta ka dhacay afafka hore garoonka Cabdullaahi Ciise magaalada Gaalkacyo waa maantahay saraakiishan
waxay hordhac u ahaayeen kolonyadii hogaaminaysay ra-iisul wasaaraha ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen taliyihii ciidamada 12aad ee dowladda federaalk Soomaaliya Jenaraal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje, taliyihii ciidamada danab ee gobolada dhexe iyo ku-xigeenkiisa duqii hore degmada Gaalkacyo ee Puntland Maxamuud Yaasiin Jaamac Tumey iyo ciidamo badan oo banaanka joogay xilligaasi. sidoo kale waxaa jira dad shacab ah oo dhaawacyo ka soo gaaray kuwaas oo ku sugnaa afafka hore garoonka Cabdullaahi Ciise magaalada Gaalkacyo. qaraxa kadib ilaa caawa ayaa la sheegayaa in ciidamada ay ridayaan rasaas badan taas oo sababtay in dadka qaar ay ku dhaawacmaan waxaana xiran inta badan goobaha ganacsiga ee magaaladaas. madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ka soo jeeda Galmudug siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka tacsiiyay weerarkan dadka badan ay ku dhamaadeen. dhowr bilood ka hor qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Gaalkacyo ayaa waxa lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur. al-shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi. ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Qorqoor oo galabta gaaray magaaladaasi ayaa ku sugan xarunta madaxtooyada gobolka Mudug.